السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نرديد يدك كلاه كحولن باتشان كنا عشرة عافماتك waxaad ku soo dhawaataan lasakeena saddexaad ee nutritionka ama sida loo yaqaan Soomaalihan nafaqada. Saawada ogsoonahay waxaan soo dhiganay proteinki baan soo qaybinay essential maanta waxaan qaadan doonaa why do we need protein maxaan ugu baahanahay maxaad ugu baahantahay protein adigoo daawanaya muuqaalkan hadda proteinku maxaa ugu baahanay kow inaan ka helnaas energy source inuu energy ka soo baxday weeye waxaan ognahay inay proteinka iyo fatska iyo carbohydrate-ka fatku aanu imaan doono intaba in laga helo energy laga helo laakiin qadarka laga helo ayaa ku kala badan yihiin waayo carbohydrate-ka ayaa ugu badan proteinka ayaa ku soo xiga fatka ayaa ku soo xiga haddaan khaldanahayna wadi sixi doontaan talabaad waxa weeye to help your body repair cells and make new ones waxay naga caawisaa inuu salalkii dhintay inuu repair gareeyo proteinku iyo inuu abuuro markaas salal cusub proteinku wuxuu muhiim u yahay dhismayaan lafuhu iyo murquhu iyo carjowda iyo maqaarkeenu proteinku waxay door muhiim ah ka ciyaartaa inay hormone regulation hormoonada ay joogtayso sida ogsoontii waxay nagu xigi lahaa faad ayaa nagu xigi lahaa laakiin faadka waxaan ku qaadan doonaa lesson-ka ku xiga micronutrient waxa weeye waa one of the major groups of nutrients in your body need waa waxa ugu badan uu baahan yahay waa nafaqooyinka ugu badan ee ugu muhiimsan waa gurubyo nafaqa kuwaas ugu muhiimsan jirkeenu u baahan yahay deen kulul maxaa kamid ah vitamin iyo minerals baa kamid ah vitaminsku maxay muhiim u tahay waxay noo soo deeysaa energy production waxay immune function ka qayb qaadataa difaaca jirkeena ka qayb qaadataa waxa ka qaata kala blood clotting xinjirinta dhiigga xinjirismayo iyo shaqooyin kale oo daadahan dhinaca kale marka eegno mineralsku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan garowga koritaanka lafaha caafimaadkooda iyo fluid balance-ga haddaan sii socono vitaminsku waa organic compound weeye oo wax organiga oo wax made oo ka kooban by plant bu ka sameeyay animal hada organic noqoto wax nool ayuu ka soo jeedaa kaasoo lagu burburin karo kulayl iyo acidity iyo air iyo hawada daadahan dhinaca kale marka eegno mineralsku waa organic compound weeye exist waxayna u jiraan soil carrada or ama water iyo biyaha and cannot be broken down lamana burburin karo hadda ka sii socono waxaan eegin doonaa types and function of micronutrients noocyada iyo shaqooyinka loo qaybiyo micronutrients vitamins and minerals oo la isku daro waxa loo qaybiyaa afar category ayaa loo qaybiyaa kow maxaa water soluble vitamins fat soluble vitamins macro minerals iyo micro minerals haddaan mid soo qaadana hadaba water soluble vitaminsku most vitamins dissolve in water badi hadaba vitaminadan waxa lagu milaa biyaha and therefore known as waxa loo yaqaan water soluble ku milmaya biyo ku milmaya the water soluble vitamins with the sum of their functions qayb kamid ah hadaba water soluble vitamins iyo shaqooyinkoodii vitamin B1 baa ugu horeeya vitamin B1 maxay noo tartaa help waxay naga caawisaa in nutrients nafaqadii ay noogu bedesho wax energy tamar leh vitamin B2 kuna maxay naga caawisaa shaqadu tahay necessary waxay muhiim tahay in energy production la soo daayo iyo in la soo daayo cell function and fat metabolism vitamin B3 una maxay naga caawisaa production of energy production la soo deeniyo energy tamarta la soo deeniyo from xagee laga keenayo food cuntada laga keenayo vitamin B5 waxay naga caawisaa waa necessary for fatty acid synthesis waxay laga maarmaan u tahay inay fatty acid synthesis samaysanka ay sameeyaan fatty acidyadu ay markaa muhiim u tahay synthesis la ognahay waa make way wax la sameeyo vitamin B6 hadaan nimaano create waxay sameeysaa red blood cells unugyada dhiigga casas ay sameeyaan vitamin B6 ku vitamin B7 hadaan nimaano waxay door muhiim ah ka ciyaaraan in the metabolism samaysanka ay sameeyaan metabolism ku dhacayo fatty acid-ka metabolism soo ogsoonahay waa dheef-samaynta ay sameeyso fatty acid-ki oo fatki amino acids oo looga jeedo proteinki iyo glucose oo looga jeedo carbohydrate-ki vitamin B9 ku hadda muhiimada loo leeyahay shaqada qabata waxa weeye important for proper cell division qaybsanka uu salku qaybsamayo ayay muhiim u tahay u fiican tahay vitamin B12 kuna waxay necessary u tahay ay laga maarmaan u tahay for red blood cells formation unugyada dhiigga casas markay sameeyaan ayaduna muhiim tahay vitamin C waxa loogu baahan yahay for the creation ee sameysmato of collagen ee sameeysto iyo skin-kaaga maqaarka haduu ku jeexmayo ama meelaha xoqoqtaan aad yeelatid qofku vitamin C haduu qaato adu anyway ka wacanaan kara halka aad ka gudbo
aan gudbo fat soluble vitamin. Fat soluble vitamin cisa waan ka wada aragtaan waa fat soluble vitamin waxa weey do not dissolve in water biyo kuma milmayaan waxa lagu store gareeyaa your liver beerkaaga aan fatty tissue iyo meel kasto ah barur ay dux leedahay ama barura for future use u isticmaashid mustaqbalka. The names and functions magacyada iyo shaqooyinka ay leeyihiin fat soluble vitamins waxa kamida vitamin A oo ah necessary for proper vision qofka aragiisa ay laga maarmaan u yihiin vitamin A. Vitamin D waxay kor u qaadaa proper immune function inuu wacnaado difaaca jirku inuu wacnaado ay kor u qaadsaa. Vitamin E iyaduna waxay waxay ka caawinaysaa inuu immune function kaagi immune function kaagi inuu si wacan u shaqeeyo iyo waxa u dhaqantaa si antioxidant inuu ka ilaaliso si wax sunta ka ilaalinayo kale that protected kuwaas oo ay cells kuwaas oo cellkaagu ilaalinaysa kala ilaalinaysa from the damage dhaawacyada marka soo gaaraya. Vitamin K waxa ugu baahanahay for blood clotting in dhiigana nooxin jirayso. Macro minerals waxa weeye sida magaca ka muuqataba arneed waxa loogu baahan yahay in large amount wax macro dad maqasho wax xaddi badan looga baahan yahay dan marka loo eego trace minerals erga trace dad maqashada waa micro minerals baa looga jeedaa nooda si habaysan to perform si ugu their specific role in your body. The macro minerals and some their functions qaybo kamida macro mineralska iyo shaqooyinka ay qabtaan. Waxa kamida calcium waxay muhiim u tahay necessary u tahay for proper structure qaab dhismeedka jirka iyo shaqada lafaha iyo ilkaha. haddaba phosphorus-ka down nimaano waxay part of a bone and cell membrane. Phosphorus-ku waxay muhiim u tahayba qaybo dhan ayaa ka samaysan lafaha iyo cell membrane structure-kaba. haddaba nimaano magnesium waa regulation of blood pressure waxay control ama maamusha ama joogtaysa blood pressure-keena. Sodium kuna iyadoo way maintenance gareysaa iyaduna blood pressure xaggan regulate ka samayso ama ay joogtayso oo meeshiisa ku hayso saanu marna u badan marna u yaraanin tanna way maintain gareysaa iyaduna way controlsha. laba shaqo isku soo dhow yihiin magnesium ki sodium shaqooyinkoodu isku soo dhow yihiin shaqooyin kale way leeyahan karaan. Chloride waa help maintenance fluid balance iyadoo help waxay caawisaa maintenance fluid balance ee joogtayso balancega fluidka isu dheelitiranka fluidka. Potassium waxay iyaduna caawisaa muscle functionka shaqooyinka marka ay muscle ku qabanayaan. Sulfur iyaduna waxay qayb kamid weeye living tissue noolayaashina nool waa qayb kamid ayaa sulfur marka ka samaysan. micro minerals magaciisa ka muuqata waa micro wax yar baa looga baahan yahay. Micro mineralska also koob waxa loo yaqaan trace minerals wargi kala soo aragay waas ku macne arasasha waxay muhiim yihiin mineralskani laada human body in jirka bini'aadamku mastigada uu ka helo faranfoor cuntada ka helo. trace mineralsku arneed waxa ugu baahanay in smaller amount xad yar baan ugu baahnay dan marka loo eego macro mineralski. The micro minerals and some of their functions qaybo kamid micro mineralski iyo shaqooyinkii qabtaan sida iron ba kowka iron ku help waxay naga caawisaa profeeda helno oxygen to muscle murqaheenu inay helaan oxygen iyada ka caawisa. Manganese assist waxay naga caawisaa in carbohydrate-ka iyo amino acids-ka proteinkiya iyo cholesterol fat-kiya inay metabolis gareyso ama dheefsamo burburiso. Metabolism kuna wuxuu noqon karaa ida catabolism or anabolism. hadda si socono cover require waxa ugu baahnay for conductive tissue baan ugu baahnahay formation samaysanka ay sameynaya connective tissue-yadu ayaa cover muhiim bay u tahay. Sinkigu necessary waxay laga maarmaan u tahay for normal growth qofka koritaanka normal growth ku sameynayo sinki baa muhiim u ah. Iodine assist waxay naga caawisaa in thyroid regulation inay joogtayso thyroidka qanjirka thyroid glands-ka hormoonada soo deynayo inay joogtayso ayaa muhiim u tahay. Fluoride waxay muhiim u tahay iyaduna development bonuska samaysanka ay samaysmanayaan bonusku iyo lafuhu. Selenium importidu waxay muhiim u tahay thyroid hormone kan qanjirka laga soo daa iyada iyo iodine waa isku soo dhow yihiin xagga shaqada oo isku soo dhow yihiin. lesson ka xiga waa inoo casharkii aan ka soo boodnay oo ahaa fat.